xumada kuwii xumaa ee dhaqan xumada iska dhaaf inay sameeyaan ducaada ku ahaa ducaat kuwa ku baaqa oo ololaha weyn u galay qaanuunka Mareykanka laga soo saaray oo ah inuu ninkuna nin guursado gabadhuna ay gabadh guursato ayaa wadankeena lagu soo dhaweeyay markaas cirka la geeyay oo amaanta loo kiilay oo isaga naf la biday oo la yiri bal adduunyada noo sheeg i'tiraaf aanu helle ya subhanallah wa arda an-nas wa dadka kuwii u liitay xayawaanaadku waxay garteen xataa garan waaye xayawaanaadka lab wata ama dhadig wata ma aragno sidii ilaahay fidrada ilaahay ku abuuray ku socdaan حتى نرشا حيوان كي هوس uga daadagay ayaan inagu sharfaynaa inuu qiimeynana oo kamida kuwa ilaahay wari inhum illa kalan'am bal hum adallu sabila wallahi la nakhafu fillahi lawmata laa'im la nakhafu kafiran wala musliman naqulu alhaqqa walau kana murra sidoo yahay baan u sheegaynaa xaq waaba qaraadadabe umadana xumaanta waa uga digaynaa markaas inta caruurteena loo geeyay habliyo inamo ay isla sawireen yaa la isla sawiraa marka dhaqankii iyo dabciga iyo caadada bani aadamka la eego qof loo arkay inuu yahay qof sharaf leh oo qiimo leh oo la rabo xusuus in laga haro Soomaa kaasa maanta meel walba mawaaqiicda oo dhan waxa ku faafsan hableeni yaryara iyo inamadeeni yaryara oo sharaf ku doonaya inay ka garabka saaraan oo ka waxa weeyaan ay isla sawiraan markaas inaguna aynu wax fiican oo aragnaa oo haday noqoto meelaha wax lagu qoriyo haday noqoto warbaahinta amaanun baa looga kiilay ma joogin anigu wadanka laakiin si dhabaayaan ula socday xaqaayiqda noocaasi ah waxaan sheegayaa ma aha war qof soo gaarsiiyay waxaan anigu akhriyay oo indhahayga aan ku arkay وحقيقتي iyo guntiisa aan ogaaday weey taasi wax kale calaamadu ma aha waxa calaamadu tahay غير darrada inaan xumaan ba looga baahayn ubadki oo ka noocaasa in caruurta laga ilaashado bay ahay habla iska daayeen inamada laga ilaaliyo Soomaa oo laga fogeeyo maadaama mabdiisuba nooca uu yahay arrinka toddobaad wuxuu yahay kashfu du'aati radila kuwa ku baaqaya dhaqan xumada ama gaalaha noqdaan ama islaam haday doonayaan ha ku abtirsadaan arrinkooda waa indaaha laga qaado maanta waxbay qorayaan oo diinteeni bay la dagaalamayaan iyagoo af Soomaali wax ku qoraaya maalmo yar ka hor baan akhrinay mid Soomaaliya oo la nabi maxamed intaasuu maqaal ka soo dhigay nabi maxamed intaan loo waxyoon ka hor mushrik buu ahaa asnaamta la caabudo tolki waxa looga jeedaa hadalka noocaasna qof waliba uu fahmi karaa sidii islaamku dambiyada qaar uu la dagaalamay sida gacan goynta iyo waxa maanta isbedel baa dhacay waa in laga guuro si kale loo maareyn karaa Soomaali ninka sidaa leh quraanku ma wadama oo Aisha waxay tiri suuratul ahzab inta maanta ay tahay aad bay uga badnaan jirtay يعني صحابة القرآن كي قيبة كميدة دادية حديث واحد ليران ما بتشربه أما بخاري هكو قرادة أما مسلمة دينتين لك بالدنيا مركل الحديث ما تشرب وهكذا كوا كلنا واد مغلسة ضد كنوع عاس وين داها لقى قاضي ضد كاف صومالي وحكو قري كرا أي موتشيان ركتيها النوع عاس الدين تلقوا لدق الله مايو يفعل حمدا يحنبار سيهين dadka ducaada iyo culimaduna waa inay ka hadlaan waa dacwadu umadan ku socotee way laga hortago oo laga difaaco ilaahay baa subhanahu wa ta'ala yiri wallahu yuriidu an yatuuba alaykum ilaahay tawbad buu idin ku baaqaya xumaanta ka soo noqotaan wanaaga u soo noqotaan wa yuriidu alladheena yattabi'una shahawat an tamilu maylan 'azima kuwa shahwadooda raaci doonista naftooda uun qaanuun xidaabaanu jirin waxay doonayaan xagga xumaanta u leexdeen idinkuna inaad ula leexataan wanaag idin la dooni maayaan waa kaydi mujaahid markuu fasiraya aayada yuriiduna an yazni ahlu alislam kama yaznuun halkii ugu darayd buu ka soo qabtay akhlaaq xumada
waxay doonayaan ahlul islaamku zina iyo foolxumo inay sameeyaan sida iyaguba u sameeyaan marka ilaahay kuwa waa idinka digayaa innagana waxa waajib inagu ah inaynu ka digtoonaano muslimiintana aynu uga digno allahumma